kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada mar kale iyo qodobada maanta aan ku eegi doono barnaamijkeenna wax badani waxa uu ka duwan yahay siyaasadii bariga dhexe iyo dagaalka Mareykanka iyo Iiraan ee halkaasi ka holcaya si ka gadisan sidaasi gobolkan aan ku dhaqanahay ee Virginia ee oo wadaagta la ah magaalada Washington DC waxa ka soconaya doorasho gaar ah maanta hadda waa doorasho gaar ah oo loo qaabeeyay markaasi inay wax badani ka bedesho siyaasadda dalkan Mareykanka gaar ahaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republikaanka ee ugu xoog badan xisbiyada dalka Mareykanka ee siyaasadda dalkan ayagu midba mar uu soo koro xilka madaxtinimo ee wadankan gobolkan Virginia ee maaragtay magaalada Washington aan wax badani ka fogeyn ayaa waxa uu leeyahay 11 kursi oo aqalka Congress-ka ah haddase waxa xisbiga dimuqraadiga oo u badan kuraastaasi haystana 6 kursi ay raadinayaan inay helaan 10 kursi ka gadaal markii ay sameeyeen doorashada lagu qaabeynayo habka gobol ama district ee gobolkani waxa jirtay maanta doorashadaasi oo codadka dadweynaha ay u dareereen laga bilaabo 6 aroornimo ilaa iyo 7 fiidnimo xilliga gobolkan Virginia ee magaalada Washington DC haddaba dib u qaabeyntan ayaa waxay wax badan ka bedeli doontaa siyaasadda iyo xilka madaxtinimo cidda lagu soo dooranayo sanadkan soo socda haday noqoto gaar ahaan kuraasta midterm electionska ama doorashada dhexe iyo sidoo kaleeto doorashooyinka waaweyn ee soo socda sanadaha soo socda hadii ay noqoto 3 sano kadib cidda bedeli doonta madaxweyne Donald Trump haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo ah suxufi degan gobolkan Virginia waxa uu ka mid yahay dadka degan gobolkan ee codeynaya maanta waxa uu ka faaloodaa arrimaha siyaasadda iyo amnigaba waxa uu si toos ah khadka uga jira hoygiisa Maxamed bal soo dhawow ugu horeyntii aniga waad u jeedaa waa soo codeeyay maanta codkaygan soo dhiibtay maaragtay goobta codbixinta ayaan tagay leen ayaan galay kadib marka adigu ma soo codays anigana waa gurdhow ayaan bixi doonaa waraysiga kadib oo aan codkayga soo dhiiban doonaa codku waa xuquuq asaasi ah oo ay tahay inaan ka faa'iidaysano maadaama ay tahay wax naadir ah inayna soo maraan oo mar walba ay tahay inaan ka qayb noqono codkeena halka uu jiro iyo waxa aan doonayno inaan noqono inaan ku muujino santuuqaasi oo ah mid sir ah laakiin sahro waa ku jeeda inaan soo codaysay waana public oo si guud ayaa loo ogyahay qofku markuu codeeyay informationkiisa hadii la geliyo systemka laakiin yaad u codaysay isma weydiiyo wadankan soo maaha waa sidaas aad sheegtay waxyaabo badan ayaa wadankan la isweydiin Maxamed Bashiiro waxa kamida markaan imaado halkan waxyaabahan ku wareeray oo aan aad ula cajabay waxa kamida qofka hadii uu xanuunsan yahay xanuunkiisa sida uu yahay waxa laga yaabaa inay sir u tahay oo uu sheegin oo uu ku dhaho privacy-geyga waa wixii caafimaadkeyga waxa jirto in qofka aragtidiisa siyaasadeed cidda u soo codeeyay saad sheegtaba inaad soo codeyso waa public laakiin cidda u soo codeyso aad sheegin oo ay sirku ahaato waxyaabaha kale oo sirta ah oo la cajabo waxa kamida oo qayb ahaan ay dadku soo bandhigaan maanta waa maalinteeda dhalashada lagu leeyahay waa la wada faraxsan yahay dad ayaa ku sameynaya xaflado haddana inta uu yahay inta ay tahay da'daada in la ogaado ma rabtid oo waa la qarinayaa marka waxa kale oo kamida bangiga lacagta kugu jirto waxa laga yaabaa in ay sir ku tahay oo da sheegaynin marka kuwa kale to siyaasadda la taxluuqo waaba gartayba xisbiye isku soo horjeedo wadankan ayaa maaragtay qayb ka ah siyaasadda republican iyo dimuqraadi arrinta ku saleysan caafimaadkaaga xoogaa in lagu riixo goobaha shaqooyinka ay dadku ka baqaan qof waxa arkaysaa lagu leeyahay stage 4 cancer uu qabay bilihii ugu dambeeyay qofkan aad caadi u arkaysid daris ah aheedeen ehel ah aheedeen laga yaabo inuusan caafimaadkiisa shaac bixinin oo uu dhihin waxaasan qabaa in lagu faquuqay dadka ka baqaan arrimaha caafimaadka marka waa wax ajaa'ib la Soomaha mushaarkana waa la isku dilaa dhaqaalaha waa la isku dilaaba dadka qoysaska xataa isdila wadankan oo kale qofka inta dhaqaalaha oo haysto lacagaha oo si dhigtay saving la yiraahdo waxyaabahaas wax la isku dilo marka waxay baa in la qariyo taas ku qasbantaa wadanka waxa kaliya laga hadlaa marka la isku yimaado laba qof oo aan isaqoon ciyaaraha footballka oo kale oo qofku markuu wadanka yimaado ku qasban yahay inuu barto maxaa yeelay waxaas kaliya laga hadlaa cimilada la isweydiiyaa cimiladu maanta way fiican tahay waxyaabahaas laga hadlaa waxyaabo iska fudud oo aan siyaasadna laga xasaasiyad lahayn siyaasad maadaama la isku diidi karo waxyaabaha qaar waa adagta dad isfahamsan la garay laakiin dad aan is aqoonin marka ugu horeysa ama inay ka hadlaan siyaasad iyo wax ka duwan annaga fadhigu dirira la iska yimaadaa isla markii waxa laga hadlaa meesha ugu dambaysa la isla gaaraa
ya marka oo kala duwanaanshaha marka aniga bal hadda aan ku weydiiye mahaabaad ku codayn doontaa mise maya labadaas su-aalooda maanta meesha yaale weli ma tegin Sahra markaan tago ayaan arki doonaa waxay noqota dhaya waa ogaa inaad sii og tahay laakiinse dhib male waa yahay bal aniga iyo dadweynahaba haddaad noo sharaxdana daawanayo doorashadan sida gaarka ah gobolka Virginia maanta ugu ah gaarka maxay tahay Sahra waa mahadsan tahay doorashada Virginia ka dhacaysa maanta waxay ka turjumaysaa baahi gobolka uu sheegay xisbiga dimuqraadiga ayaa gobolka dabcan maamula labadiisa aqal sanadka iyo aqalka hoose ee golaha wakiilada iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka oo doorashadii ugu dambeysay ee sanadkii hore dhacday ay ku guuleysteen dimuqraadiyiinta marka waxay leeyihiin waxaan kaga jawaabaynaa waxay u bixiyeen doorasho cadaalad ah waxay leeyihiin Donald Trump madaxweynaha Mareykanka markii uu yimid waxyaabaha uu doonayay uuna si cad uga codsaday gobolka Texas iyo gobolada kale ee jamhuurigu maamulaan waxay tahay in si loo xaqiijiyo in aqalka wakiilada ee soo socda Mareykanka doorashada November dhacaysa in jamhuuriyiintu sii maamulaan ayuu ka codsaday in kuraas dheeri ah loo qoondeeyo amaba kuraas dheeriyana dhihine kuraasta ay hadda dimuqraadiyiintu haystaan in dib u qaabeyn lagu sameeyo degmooyinka ay maamulaan si loo yareeyo tirada dimuqraadiga ee kasoo bixi karta goboladaasi siiba Texas oo kale 5 kursi ayaa dib loo qaabeeyay oo laga dhigay kuwa ay adag tahay inay dimuqraadiyiintu kasoo baxaan oo loogu roonaanayo dhinaca jamhuuriga inay si fudud ay uga soo baxaan marka gobolka California oo dimuqraadiyiintu ay maamulaan ayaa horey wuxuu u sameeyay afti midan lamid ah oo ah wax ka bedel lagu sameynayo in 5 kursi ay u janjeeraan dhinaca dimuqraadiga ee gobolkaasi 55 xubnood ee golaha wakiilada ugu matala gobolka Virginia 12 sida aad sheegtay 6 waxaa haysta dimuqraadi 5 waxaa haysta jamhuuri marka waxay leeyihiin annagana 5 kursi ayaan doonaynaa in ay aadaan ama aan iraahday 4 kursi ayaan doonaynaa in ay aadaan amaba ay u fududaato in dimuqraadigu ay si fudud ugu guuleystaan dan intii ay ku guuleysan lahaayeen jamhuuriga marka qorshahaas ay soo bandhigeen laakiin qorshahaas iskama samayn karaan waa in dadka ay weydiiyaan sidan ma samayn karnaa marka waa afti wax ka bedel lagu sameynayo haddii marka dadku ay haa u codeeyaan oo ay bataan codadka haa u codeynaya maanta waxaa dhici doonta in gobolka fursad loo siiyo in ilaa 2030 2030 laga gaarayo ay iyagu qaabkan ku sii maamulaan oo afartaasi kursi ay noqdaan kuwa u janjeera dhinaca dimuqraadiga maxaa ku xiray marka 2030 oo marka ay dhacayso tirinta dadweynaha 10 sano mar la tiriyo census wax la yiraahdo oo 10 sano mar Mareykanka la tiriyo dadka gobolada ay ku nool yihiin markaasi waxa lagu qaabeeyaa marka gobol walba tirada xildhibaanada uu helayo waxa laga yaabaa Virginia kale hadii tiradeedu ay badato inay kuraas badan hesho hadii tiradeedu ay hoos u dhacdana tirada dadka ku nool ay kuraas 12 ah ay ka yaraato marka ilaa xilligaas la gaarayo ayaa qorshahan hadii maanta haal loo codeeyo oo sii jiri doona dabcan waxaana markaas kadib xukunka dib loogu soo celin doonaa guddi madax bannaan oo iyagu districtinka waxa la yiraahdo ama degmooyinka doorashooyinka iyagu qaabeyn doona si fiican ayaad u dhigtay marka maxay uga dhigan tahay dimuqraadigu hadiiba ay ku helaan qaabeyntan 4 kursi raadinayaan Sahro aqalka wakiilada hadii maanta aan eegno aad ayaa la isugu dhow yahay dabcan jamhuuriga ayaa maamula laakiin tirada ay ku maamulaan ayaa ah wax ka yar 4 kursi aad ayaa marka la isugu dhow yahay marka labada xisbi waxay ku dadaalayaan Trump waxa uu yiri 5 kursi ayaan ka rabaa gobolka la yiraahdo Texas oo kale waxay tahay in hadii dimuqraadigu ay 5 kursi meelo kala duwan ay kaga guuleystaan jamhuuriga in at least ay heestaan kuraas ay ku badbaadaan dabcan marka waxa lagu loolamayo waa aqalka wakiilada ee soo socda bisha Janaayo ee sanadka dambe kuraas fariisan doona iyo hogaamin doona inta badan taariikhda Mareykanka xisbiga haysta aqalka cad ee Mareykanka ayaa looga guuleystaa doorashooyinka xilliga dhexe marka hadii dimuqraadiyiintu ay ku guuleystaan aqalka wakiilada ee Mareykanka waxa ay noqon doontaa mid isku dheelitirnaan awoodda dawladeed ee Mareykanka oo Trump hadda sida uu u haysto wax walba oo aqalka wakiilada marsiin karo oo meesha kaliya caqabada uu ka wajahayo ay tahay aqalka sanadka oo xubno xisbigiisa oo oo dhexdhexaad ah laga yaabo inay caqabad ku noqdaan ajandihiisa laakiin labadii aqalba hadda uu haystaa haddii marka labadaas aqal midkood ay dimuqraadiyiinta gacanta ku dhigaan waxa ay noqon doontaa mid adag
madaxweynuhu wuxuu kaloo ka cabsanayaa sahray in dabcan xilka xayuubin amaba impeachment ay ku sameeyaan aqalka wakiilada horey markii uu xafiiska u joogay 2 mar ay aqalka wakiiladu ay ugu sameeyeen mansabka xayuubin haddana waxa uu leeyahayba si public loogu sheegayaa in haddii ay ku guuleystaan ay sidoo kale sameyn doonaan marka cabsidaas ayaa keenaysa dimuqraadiyiintana way ka go'an tahay in sanadkan ay dabcan ay guuleystaan amaba ay aqalka wakiilada ugu yaraan ay helaan doorashada sanadkan wax badan cidiyaha lagu dagaalami doonaa waatan hadda iyadoo dhowr bilood weli ay ka dhiman tahay ay kasoo bilaabatay Texas iyo gobollo kaleetaba marka bal waxaad iiga warantaa hadda kaba soo qaadba gobolkan Virginia markii ugu horeysay xataa governor ama gudoomiye gobol waxaa ka noqotay haweeney xisbiga dimuqraadiga ah New Jersey sidoo kaleeto waad arkaysay New York City meelo badan xisbiga dimuqraadiga dadku waxay u muuqdaan in ay hadda si weyn u soo dhaweynayaan siyaasadda Republicaanka iyo madaxweyne Donald Trump iyo waxa dhacayoon arkayna aawad dagaalkan bariga dhexe saameyntiisa ayuu leeyahay oo dad badan oo Mareykanka waxay u arkaan xataa in Israa'iil ay Mareykanka ku riixda dagaalka inay galaan laakiinse ayaga aysan wax dan u ah ama ay ku fikireen aysan ahayn marka waxyaabahaas oo dhan markii la isku soo daro awoodda iyo codka ma siin doontaa dimuqraadiyiintu inay kuraastan ka helaan gobolka Virginia rajadu waa sidee horta waa sida aad u sheegtay aad ayaa la isugu dhow yahay labada cam ama labada dhinac kuwa diidan iyo kuwa ogolba aad ayaa la isugu dhow yahay buuqu aad ayuu u badan yahay saadaashuna waxay leedahay aad ayaa la isugu dhow yahay xitaa gudoomiyaha golaha wakiilada qaybta dimuqraadiyiinta xubnaha laga tirada badan yahay dimuqraadiyiinta Hakeem Jeffrey oo gobolka soo booqday oo ka ololeynayay waxa uu sheegay in aan la saadaalin karin sida ay codkan uu ku dhici doono laakiin dimuqraadiyiintu waxay filayaan in xaaladda marka la eego waddanka oo dhan sida Trump uu u yahay mid approval ratingkiisu uu aad u hooseeyo oo mararka qaar 35 uu xataa kasii hoos marayo dagaalka Iran saameyn uu ku yeeshay dhaqaalihii waddanka shidaalkii oo kale oo noqday mid qaali ah maciishadii ay noqotay mid sare u sii kacda waxyaabahaas oo dhan oo ahaa waxyaabihii Trump uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo maciishada iyo sicir bararka iyo waxyaabahaas oo dhan wixii uu ballan qaaday ay qayb ka ahayd ee dadku Mareykanka ay u doorteen 2024 dabcan waxaad u malaysaa in madaxweynuhu uusan ka dhabaynin arrintaasi dagaalkan uu kaga sii daray xaaladii dhaqaale ee waddanka marka dimuqraadiyiinta saadaalada la sameynayo sahra waxay sheegayaan in aqalka wakiilada ay u badan tahay inay qaataan waliba dimuqraadigu sida ay leeyihiin ilaa 40 ilaa 45 kursi oo inay heli doonaan oo qaarkood intooda badan ay ku fadhiyaan jamhuuri hadda oo ay noqon doonto natiijo adag oo ilaa 200 iyo dabcan ay gaari doonaan natiijo ay ku helaan majority-ga ama aqlabiyadda golaha wakiilada Mareykanka dhinaca sanadka oo kale oo la lahaa xitaa way adag tahay in dimuqraadiyiintu ay majority-ga ama aqlabiyadda helaan oo maadaama 47 iyo 53 la kala haysto hadda saadaaladii u dambeysay waxa ay sheegayaan in dimuqraadiyiintu ay xitaa ku soo dhawaan karaan hadiiba aysan aqalkaas la wareegin inay ku soo dhawaan karaan oo 49 ama 50 ay noqon karaan codadkooda marka loo eego saadaalada hadda sida ay wax yihiin hadii maanta doorashada la qaban lahaa dabcan waxba isbedeli kara muddadaasi waa muddo aad u fog November laakiin hadii maanta la qaban lahaa in laga yaabo in dimuqraadiyiintu ay aqalkaasi ku dhawaan lahaayeen ama ay maamuli lahaayeen aqalka sanadka cod bixintu goormay ku eg tahay goormaana natiijada la shaacin doona codaynta waxay ku eg tahay oo la xiri doona sanaadiiqda 7 fiidnimo kadibna waxaa la bilaabi doonaa tirinta codadka dabcan Virginia ilaa 6 saac habeenimo waa lagu kala baxaa doorashooyinkooda oo si degdeg ah ayaa loo tiriyaa dabcan xisbiga guuleystay amaba ololaha guuleystay ayaana soo ay noqon doontaa mid la shaaciyo dabcan waxyaabaha marka waxa yaabka ku leh doorashadan waxay tahay sahra madaxweyne Obama oo hadda kamida dadka oo markaad YouTube furtaba kaasoo horbaxaya ee leh Virginia idinka isku keen haleynayna waa inaad tagtaan waa inaad ha u codaysaan leh dabcan dimuqraadi jamhuurigu waxay adeegsanayaan codadkiisii hore isagoo aad uga soo horjeeday waxa la yiraahdo districting ama gerrymandering aad uga soo horjeeday ama dib u qaabeynta hadii la dhaho degmooyinka oo jamhuurigu ay dabcan goboladooda caan ku yihiin inay aad ugu talax tagaan aad ayuu u dhaleeceyn jiray codadkiisii hore isagoo dhaleeceynaya ay adeegsanayaan hadda jamhuuriyiintu gabadha gudoomiyaha gobolka Virginia ah
Abigail Spanberger hore ayadana aad ayay uga soo horjeeday waxyaabahan redistricting ama gerrymandering ama dib u qaabeynta degmooyin doorashooyinka ee Mareykanka isla codadkeedii ay hadda adeegsanayaan oo ay leeyihiin dabcan jamhuurigu ay adeegsanayaan ay leeyihiin war gabadhan sidan ay dhihi jirto maantana dhinaca kale joogtaaye sideedii hore ayaa fiicneeda saas aan joogno marka waxaad u malaysaa in labadii ay kala aadeen laba jiho oo aysan awal qolada jamhuurigana waxan waa wuxuu ku shaqaysan jireen waa midii ay rabeen waxaad u malaysaa hadda inay ay ka soo horjeedaan dimuqraadiyiintan wixii ay ka soo horjeedi jireen inay hadda rabaan marka waxayna ka turjumaysaa kulaylka siyaasadda Mareykanka kala qaybsanaanta siyaasadda Mareykanka iyo in siyaasaddu ay tahay wax aad u adag sanadkan oo aad u kulul waxaa la saadaalinayaa in saan horeyba u sheegayba ay noqon doonto doorashadan halka lagu kala cadgoosan doono haddee gari laba kama qoslisaa la dhahay markii la gaaro bisha November dhammaadkeeda qolo unbaa qosli doonto markii codadkii ay soo baxaan doorashooyinka labada xisbi waana la saadaalin karaa xilligaasi madaxweyne Donald Trump xaaladiisa haddii ay tahay mid caafimaad qabta iyo haddii ay tahay mid jahwareer siyaasadeed uu soo wajahay oo xaaladda sii adkeyn doontaba waa sidaas doorashooyinka dabcan saadaalada sidaas ayay muujinayaan codadka dadweynahana aad ayay u kala duwan yihiin jamhuurigana laftigooda saadaashooda waxay sheegayaan sanadkan inay tahay sanad aad ugu xun senator waxaa jira jamhuuri ah oo kuwa xag jirka ah oo dabcan aadna uga soo horjeeda shariicada islaamka dhowr mar ka hadlay shariicada islaamka Mareykanka waa in laga joojiyaa waxyaabaha caynkaas oo waa nin xag jira oo gobolka Alabama ka yimaada waxa uu shalay warbaahinta aad uga hadlayeen hadal uu jeediyay oo ah inaysanba jamhuurigu mudnayn in aqalka sanadka ay majority sii noqdaan ama aqlabiyadda sii haystaan maxaa yeelay wuxuu yidhi wax aan hirgelinayba ma jiraan waxba ma aanan qaban marka ma mudninba inaan sii maamulno marka taasi waxay muujinaysaa desperationka amaba niyad jabka jamhuuriga siyaasadeed ee jiro sanadkan haysta ee wajahaya dabcan waa dad caqli badan waa dad siyaasiyiina waa dad wax bartay way qiyaasi karaan halka dabayshu u socoto waana u jeedaan sanadkan in dabayshu ay dhinaca dimuqraadiga u janjeerto waayahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo aniga waad u jeedaa waa soo codeeyey codkayga waa soo dhiibtay marka adiga iyo qoyskaagana waxaan rajeynayaa inaad codkiina soo dhiiban doontaan si aad wax ka bedel ugu samaysaan dhankee doontaba ha noqotee arrimaha siyaasadeed ee aqalka koongareeska dalka Mareykanka iyo xisbiyada haatan ku loolamaya siyaasadaba dadkana daawanaya ee reer Virginia gaar ahaanna waxaan leenahay codku waa xaq aad leedahay waa xuquuqdaada asaasiga ah waa inaad baxdaa dastuuriga ah waa inaad baxdaa waa inaad codkaaga soo dhiibataa waxa doonto u coday sida aad doonto adiga ku taala marka tagtid qolkaasi kaligaa ku gaarka ah ee aad warqadaasi ku hortaalo meesha rabto u coday laakiin waa inaad dhiibataa aragtidaada waa inaad codkaaga muujisaa dhinaca doontaba kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan falanqeeye dhinaca siyaasadda iyo arrimaha amniga ah waxa uu degan yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka waa suxufi horey aan muddo dheer uga soo wada shaqeynay laantii afka Soomaaliga ee VOA-da waxa uuna igu waramayay aragtidiisa ku wajahan doorashada sida gaarka ah maanta uga dhacaysa gobolkan Virginia ee dalkan Mareykanka taasi oo qaabeyn doonta hanaanka doorasho weyn ee soo socota ee dalka Mareykanka markii sida haatanba ay rajeynayaan kuraas 4 ah ay ka helaan xisbiga dimuqraadiga kuraasta aqalka koongareeska haatan gobolkan waxa uu leeyahay 11 kursi oo 6 kamid ah dimuqraadigu ay haystaan 5 kamidana ay haystaan republicanka sidaas oo tahay wali dimuqraadigu waxay raadinayaan aqlabiyad aad u badan inay ku helaan kuraasta halkan ee koongareeska si markaasi ay wax badan uga bedelaan amaba siyaasadda gobolkan siyaasadda guud ahaan dalka Mareykanka ay ugu soo baxaan mar kale madaxweyne uga noqdaan waana taas sababta keentay doorashada gaarka ah ee qaabeynta gobolka Virginia maanta intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaanteenba oo isku duuban maxamed bashiir iyo aniguba oo idinla sidaas iyo nabadgelyo isma dhaaf